xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka ee dalka Britain waxay kula taliyeen muwaadiniintooda inaysan u socdaalin dalka Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiskaasi ayaa waxaa muwaadiniinta UK looga digay inay socdaal ku tagaan deegaanada Somaliland oo la sheegay inay ka jirto xaalado khatar ah oo dhanka ammaanka ah. hadal qoraal oo ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo sooranka ee dalka Britain waxaa lagu muujiyay inay sii kordhayso cabsida argagixiso iyo afduubka ee ka dhici kara dalka Soomaaliya. sidoo kale xafiiska ayaa digniin ka soo saaray deegaano ka tirsan dalka Kenya inaysan muwaadiniinta u safrin iyadoo laga baqayo in afduub loogu geysto gudaha dalka Kenya. Kenya waxaa hadda lagu afduubtay muwaadiniin u dhashay dalka Cuba kuwa la sheegay inay ku jiraan gacanta xarakada Al-Shabaab, waxaana socda dadaalo dowladda Kenya ay ku doonayso in maxaabiistaasi lagu soo sii daayo. ururka Al-Shabaab ayaa khatar ku ah dalalka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana weeraro kala duwan oo labada dal ay ka geysteen ay qasabtay inay waxyeelo gaarsiiyaan ajaanib badan, taasi oo keentay digniinaha dhanka ammaanka ah ee inta badan laga soo saaro labada dal. muwaadiniinta u dhashay dalka UK ee ku sugan Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay feejignaadaan isla markaana ay suurtagal tahay weeraro ama afduubo ooga yimaada dhanka ururka Al-Shabaab.